gaalyo waxaa laga keenay meel fog dadkuna waa ka raystay kala qoqobnaantii waqtiga dheer oo dub baa ka maray diryankii rasaasta jaan wadajir ayaa loo istaagay kolkii la daaray heesta calanka waa subax la joogo gaalkacyo mid ah oo marti gelinaysa mudan Soomaaliyeed oo meelo kala duwan ka yimi in halka la soo gaaro waxaa la geliyay dadaal badan hawsha halka ka socotana waxa in yar ka tahay noloyinka badan ee la gaaray markii gaalkacyo iyo guud ahaanba gobolka Mudug ka bayray jidkii colaadda sokeeye dagaal waxa dhici jiray sanadkii 2 goor buu gaalkacyo ka dhacay iskuulada la xiriyay meheradaha ganacsiga qax baa la geli jiray sanad walba oo waxa iska ahayd wax la iska ogeey la iskaga talagalo dadka meesha deganay baa ahayd Cabdiasiis Maxamuud Farabadane waxa uu kamid yahay xubno ka socday Unsom oo November 2015 gaalkacyo u yimi sidii ay marxaanti uga noqon lahaayeen heshiiskii magaalada gaalkacyo ku dhexmaray Puntland iyo Galmudug waqtigaas magaalada kala xirayd checkpoint badan baa yaalay magaalada isku gudbi karin hatta gudiga hatta odayaasha la saaray waxa adkaatay inay sarkaan marka waxaan ka shaqaynay marka si isku arki lahaayeen oo waxaan ku kulan siinay airportka kale taan ku kulan siinay in markaas ay wada hadlaan oo la fuliyo qodobadii lagu heshiiyay markii ugu horeysay aba joojintii iyo in maartay ciidankii la kala qaado wuxuu ahaa heshiis siyaasadeed oo maamuladu galeen laakiin xabad joojintii halkaas ka bilaabatay waxa ay bulshada labada dhinac oo garowsan dhibaatada colaadu dhaxalsiisay dhexda u xirteen fulinta heshiiska nabadda iyagoo u bareeray khatar walba oo ka hor timaada anagoo u fadhina isdhaxgal oo qodbada ay socdaan baa waxa dhacay dagaalkaas waxa jawgi dhan ayaa isbedelay saaxiibadii markaas Galmudug anagana soo dhaweeyay xataa waxaan ugu yaraatay in la is aamino waliba anagoo markaa calool ku jirna laakiin absolutely waxa dhacday in ay maamulkii iyo dhalinyaradii ay mataqaanaa soo dhaweeyaan oo waqooyi gaalkacyo noo soo gudbiyaan taas iyo 10 kale oo tallaabo ayaa laga hortagay si nabadda loo xijiyo oo aan dirir sokeeye dib ugu soo laaban marxalad ugu adkaayo Soomaaliya waxa kamid ah mar suuqa meeshiisa meel dukaan oo la isku haysta lagu dirsanaa inaan dhalinyarada isdhexgalka iyo booliska isku dhafqaayo markaas la sameeyay ayadoo xabad meesha ka socoto aan go'aansanay in xabadda aan awood ku hakino aan galno booliskana qoriyada ay qaateen anagana dhalinyarada labada dhinac inta iskaanay anaga mari cad sidana aan isku daynay inaan xabaddi joojino runtii waa noo suurtagashay laakiin khatar badan baan ku galnay intii hore ee aan heshiisku caga dhigan dadka qaar ayay ula ekayd dhalanteed maalin uu buraya laakiin waxa jiray in dheergaraad labada garba ka kooban oo si walba oo loo gujiyo nabadda u diiday in la golqabatayo wallahi jirninkii nabad maartay soo qaada oo dhinaca kale u dabacsanaada waxa la jiray war ma baqday ma fulinimadu maxay tahay ma lagu gatay waxaas u dul qaadanay runtii maadaama tuuriyo joogto ah ay ku socotay nabadda iyo inta ka shaqaynaysa hay'adda BDRC oo ka hortagaysa in heshiiskani xagal dhac ku yimaado waxa ay sanadkii 2017 samaysay daraasaad si qoto dheer loogu baarayo colaadaha soo noqnoqday ee gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug mushkiladda horta waxa u abtirinay mushkiladda gobolka Mudug markaasay waxay nala aaday 100 sano marka ilaa iyo guumaysigii iyo sohdimahoodii iyo khilaafkoodii iyo waxa soo dhan bay nala aaday way soo dhawaatay oo mushkiladahan dambe meelaha ay galgaleen baa iyadana iftiimin iyo faham ka sameynay cilmi baaristaasi waxa lagu ogaaday oo faham buuxa laga qaatay shidada madaqada ka jirta kolka ayaa la wajahay bartii mudnayd in laga abaaro oo wacyigelinta bulshadu budhigu tahay waxa ugu waaweyn oo marka anaga aanu arkaynayna waxa kamid ahayd in horta la abaabulo bulshada oo ay noqoto maaragtay abaabulku nabadda ay noqoto mid dadku uu leeyahay oo dadku wado sida lagu muujiyay talooyinkii cilmi baarista waxa loo dhaqaaqay in bulshada loo agaasimo habkii u ilaashan lahaayeen nabadooda si wada jira iyadoo la sameeyay golaha odayaasha nabadda ee gobolka Mudug sidoo kale waxa la abuuray gudiyo isku dhafa oo dhamaantood fadhiga uga kacay kamira dhalinta nabadda sida gudiga haweenka labada gadi midka saxaafadda iyo kan dhalinyarada waan shiray waxaan go'aansanay inaynu hab fikirka bulshada wax ka bedelno oo aynu bulshadii dareensiino kuna wacyi galino nabadda iyo walaalnimada iyo wada qabsiga faa'iidada ay leedahay waxa la bilaabay in bulshada laga dumiyo gidaara aan la arag u dhaxeeyay lana xoojiyo isdhexgalka iyo wadajirka ayadoo bulshadu aaminsan inaan la isku gudbi karin la is aadi karin qolo walbaba qof kasta magaalada markuu dhinac kale u tilaabayo uu aaminsan yahay in la garanayo calaamad gaar ay ku dhagantahay la dilhayo ayaan waxaan sameynay anagoo wada jira inaan hoteeladii tagno goobii waxbarashada tagno
bulshadii qaybqaybsi iskuulee iskugu xirno haweenku waxa ay samaysteen urur ay ku midaysan yihiin labada gedi ee gaalkacyo waxayna ka mid yihiin inta lafdhabarta u ah dadaalada socday ee nabadda loogu saldhigayay si guud gobolka mudug waxaan dhihi karaa waa fakshanka ugu weyn oo nabadda isdhexgalka gobolka mudug keenay waa haweenka galmudug iyo puntland oo gobolka mudug oo wada shaqeeyey oo wax badan ka qayb qaatay oo colaad badan damiyey oo xataa gobolka mudug oo dhan safar ku maray ilaa jiidaha iyo meelaha maaragtay la isku hayo baadiyaha wacyigelin badan baa jirta oo laga soo sameeyey waa run in caqabada lala kulmeeyey intii hawshani bilowga ahayd laakiin waxaa dalcad walba lagaga baxay wadajir iyada oo la isu calool xaaray laba walba oo loo kala warramay waxaan dhahaynay nabadda markaan u sheegaynay dadkii xoolo dhaqatada iyo dadkii tuulo joogta ah oo maxaa hadda ma Puntland baad nabad nooga wadaan waraan noo keen ka sanad waa kuwaana gabdhahan qaar Puntland qaarna waa galmudug dad caadi waayba oo nabadda rabay dhaheen runtii been ma idin sheegay marka dadka mushkiladda iyo dhibaatada loo geeyaa looma geeyo farxadda si hawlaha socda loo baritaaro oo nabadgelyadu u najaxdo ayaa hay'adda BDRC bulshada u qabatay tababaro looga gol leeyahay dhisidda wacyiga dadka iyo isu soo dhaweynta dhexdooda sidoo kale waxa la sameeyay fagaarayaal talada la isku dhaafsanayo dadka in fikirkiisa la dhiso baa ka muhiimsan wacyigiisa la dhiso baa ka muhiimsan daaraha iyo guryaha iyo dukaamada tababaradaasi ka sokow in dhalinyaradu kororsanayeen aqoonta nabad ka shaqaynta la xiriirta haddana waxa ay ahaayeen madalo isbarasho iyo isu soo dhawaansho horseeday dhalinyaro badan oo isdhexgalka iyo isbarasho badan aan ka helnay inaan afkaar isgudbisano isdhaafsano oo ay ka mid tahay inaan ka shaqeyno nabadda awalba aan ka shaqeyn jirnay sii xoojino nabadeynta wacyigelinta howlaha nabaddu gaalkacyo kaliya kama socon sidoo kale waxaa muhiim ah inaan xusno heshiiskii koowaad ee muddo 30 sano ah ay galeen beelahan dirirta sokeeye u dhaxayso qaar ka mid ah kaasi oo lagu gaaray deegaamo ka baxsan magaalada gaalkacyo sida heshiiskii bandiradle iyo galdogob lagu qabtay wejigiisii koowaad walina loo madlan yahay wejigiisa labaad dhanka kale waxaa heshiis midkaa la mid a looga hawla jira beelaha bariga gobolka mudug oo hore mar la isugu keenay deegaanka Ballebusle mar kalena ku ballansan inay deegaamadaasi isugu yimaadaan tallaabooyinkaasi nabadda lagu xijinayay iyo shaqada bulshadu wadajirka u qabteen kadib gaalkacyo iyo mudugba waxay u baydheen dhabaha horumarka iyadoo ay hirgaleen kaabayaal dhaqaale oo gobolkan ka socda sida dekada Garacad oo ka mid ah mashaariicda ugu weyn ee ka socda Geeska Afrika haddii aan ku soo noqono gudaha magaalada gaalkacyo waxaa siyaaday horumarka magaalada dhexdeeda iyadoo oo la dhisay dhabooyinka isku xira magaalada gees ilaa gees lana bineeyay dabaqyo dhaadheer iyo daaro kale oo ganacsi muuqaalkani waa markii hore loo dhaqaaqay halkan waxaa ku aqalgalaya Axmed Mahdi oo go'aansaday isaga oo muujinaya nabadda in arooskiisu uu ka dhaco koonfurta magaalada gaalkacyo lagana soo gudbiyo dhanka waqooyi dhalinyaradu waxaa la isla helay jiibka iyo jaanta iyadoo la garowsan yahay muhiimadda wadajirka iyo nabadda waxaa lala caweynayaa qoyska aqalgalay oo farxadda lala qaybsanayo arooskani waa midkii labaad ee xilligaasi inta waqooyiga laga soo gudbiyo koonfurta magaalada ku aqalgala Jacfar Cabdalla waxa uu ahaa ninkii furay wadadan oo markii koowaad arooskiisu ka dhacay halkan ana aroosay 2020 arooskaygu wuxuu ka dhacay galmudug waxaan go'aansaday xilli habeen ah inaan ku qabsado galmudug waliba hotel global runtii halka waxa kala kulmay soo dhaweyn aad u fiican qolada maamulka hotel global runtii aad bay ii soo dhaweeyeen arooskayga habeenka wax walba waxay ahayn free nabadda magaalada gaalkacyo xilligan waa 7 jir magaaladuna waxa ay sanadkii labaad si xiriir ah u martigelinaysaa oo lagu qabanayaa bandhig buugeedka nabadda gaalkacyo Peace Book Fair waxaana isbedelay sawirro badan oo ninkii oga xasuusto waagaasaan joogay dagaal ka socday magaciiseynay meel ciidan bay raaci jiray baawur waxaan isticmaalaynay armida oo ma bullet proof waxbada kareen baan isticmaalaynay maanta waxaan isticmaalnaa baawurta caadiga ah oo kaligeey ayaan laba dhinac u gudbaa si loogu sii jiro xasiloonida la haysto loona laba jibaaro ilaalinta nabadda waxa ay cilmi baarayaashu ku talinayaan in la helo wax badan oo la wadaago waxa la rabaa wax la wadaago waxa la rabaa jaamacado la wadaago waxa la rabaa iskuulo la wadaago waxa la rabaa isbitaallo la wadaago waxa la rabaa adeeg in la wadaago waxa la rabaa dadka iyo ciyaalka iyo hooyooyinka darisku inuu cusbada kala qaato ciyaalku iskool wada dhigtaan isku barbaaraan
xijinta nabadgelyada gobolka mudug oo aan halkaa ka soo laaban horeyna u socota ayaa waxgaradku sheegayaan in ay rabto shuruuc qoran oo heshiis lagu yahay intaa ka badan bay nabaddu u baahan tahay xeerar bay u baahan tahay nabaddu ay ku saldhigato oo qofka dambiilaha in cadaalad la mariyo uu jiro garsoor lagu kalsoonaan karo maanta haddii qof la dilo uu qofkii cadaalad helayo taas weli lama gaarin heshiiska iyo nabaddu weli waa mid ay udubdhexaad iyo hoggaan u yihiin labada shacab inkastoo ay taasi wax lagu faano tahay haddana waxaa muhiima in la ogaado in shacabku aysan awalba dagaalsanayn ee ay diriirta gaalkacyo inta badan ahayd mid ay horseedi jirtay is-afgaranwaa siyaasadeed iyo siyaasiyiin inta ay ismaan dhaafaan dadkan dusha iskala mara khuburada nabadduna waxa ay ku talinayaan in haysan taasi soo laaban nabaddaas waxaa loogu soo jiri karaa laba arrimood waa jirtaa marka dadka waraysto waxay yidhaahdaan annaga dhibta waxaa noo keena siyaasiyiin is haysta baa dhibta noo keena oo iyagu is haysta dana khaas isku wata haddaannu ka badbaadno siyaasiyiin is haysta oo dana gaara ka raadinaya inaan dagaalanno magaalada dhib ka dhacdo marka ugu horreysa waxa weeyaan waa kala badbaadaynaa si nabaddu u hesho jirrido adag oo ay ku istaagto waxaa kale oo loo baahan yahay in bulshada gobolka mudug guud ahaan dhexda u xirtaan adkaynta nabadda iyo wadajirka ummadeed